وياي بسم الله الرحمن الرحيم وأمهاتنا إذاعة كلمية طبعا وحاصور هيسان مدري للصوت عفوا دولة الفدرال مدحوينة فرماجو وكابيو هيكون مشغول سنة سيدي أعرق غلالين لهاد دورشوين كتلمو وحامدة دير هنا قبطين كويسي مدحوينة حاف يمامل كتلمو دوسرين تقنا وعي كلا فرصي أهل السنة معمول كذي مدحوينة حاف بمدح الشكل اسكو درسي kadibna labadoodii mid walba goonidiisa ay uga takhalustay heshiisyadii ay la gashay oo dhammaantoodna wax kama jiraan bay kusoo qaaday kadib marka hadda ay aragtay in maamulkii galmudug oo madaxweyne xaaf iyo kii ahlu sunna iyo dadkii doorashada daneynaya reer galmudug annagu aan ka mid ahay ay soo jeedaan oo ay arkeen khaladaadka ay dowladdu ku socoto dowladdu waxay go'aan ku gaartay in sidii baydhabo ay u booqtay oo ay ciidamada Itoobiyaanka ugu booqtay inay dowsamareed Itoobiyaan ku booqto horay ciidamo badan bay u geysay waxamar laga qaado Soomaaliya ayagaasaan dacwo ka qabnay dowsamareed waa ka warhaysan 10 sano ay shabaab ka difaacisay intii gurmatay ciiday u baahnayna lama arko magaalo amaana nabada qofka Soomaaliya sidoo rabo u maro maamulka al-sunna ku baxsan dowladii marka maadaama ay rabtay inay doorashadii boobto horay aad u ogeydeen wixii ay ka samaysay baydhabo horay aad u maqasheen wixii ay ka samaysay Jubbaland oo madaxweyne Axmed Madoobe ay diyaaraday ciidan usoo kireysatay laakiin uu ka fakaday hadda aad ka warhaysaan waxa ay gada ka wado oo maaragtay gudoomiyaasha degmada cid alaale cidii Axmed Madoobe la shaqeeyay looga yeerayo dhinaca Itoobiya oo ama la xirayo ama loo adeegsanaayo ama xilka laga qaadayo waxaad moodaa in marka ay meeshii soo hartay ay tahay dowsamareed oo dowladdu ay rabtay doorashada loo boobo murashaxiinta anigu kamid ahana loo soo afduubo aad iyo aad baan madaxweynaha ula yaabanahay inuu taariikhda ka faa'iidin oo san akhri sidii dadka Soomaaliyeed uu beenta ugu sheegay uu moodo wali ay beenta u aaminsan yihiin markii uu xilka raadinayay waa kii lahaa anigu wadani baan ahay anigu Itoobiya ma rabo haddana waad aragtaan oo habeen walba afartii habeen buu adisaba ka dhex taagan yahay asaga iyo Abiy Ahmed inuu soo adeegsado si uu Soomaalida u soo adeegsado oo dekado siiyay oo qalbi dhagax u dhiibay oo wixii u dhiibay waxa soo dhaw wuxuu sameeyay in ciidamada Itoobiyaanka shaqada ay rabaan ay u qabtaan waxaan rabaa inaan madaxweynaha xasuusiyo ciidamada Itoobiyaan oo kuwan hadda uu meelaha wada kuwa aad u badan baan hadda ka horna loo keenay ayagoo konton kun gaaray wadada dagdooyay mid tax control balcad baan ku dirnay ayagoo cagacad marka madaxweynaha iyo inta la talisaba waa uga digaynaa in maaragtay dowsamareed aysan ugu doonin meel inta la boobo oo madaxda la soo afduubo dadka danaha leh oo meesha murashaxiinta ka ay ku seexdaan oo ay baxay rabaan ka sameeyaan meeshaas annagu waxaan codsanaynaa in maaragtay maamulkii madaxweyne xaaf iyo al-sunna iyo annaga iyo dowladdu waxaan u dhammahay oo ka wada tashanay ay ka soo yeeraan wixii intaas ka sokaysa waa afduub iyo boob mana aqbalay waayahay xildhibaane laakiin magaalada hore waxa ugu sugnaa ciidamo ka tirsan amisom oo Djibouti ah ciidamadii dawladda federaalka joogay Ethiopia meelo badan oo dalka kamid ah bay joogaan ciidamadoodu amisom ayana ka tirsan tahay marka maxaa ku jaban oo cabashada ama baqdinta aad qabtaan keenayo ciidamada amisom sideedaba waxa la geeyaa meel baahi ay ka jirto ma maqashay madaxweyne farmaajo oo ciidamada amisom shabaab u adeegsanay waa sida aan ku sheegay wuxuu adeegsaday baydhabo wuxuu adeegsaday Kismaayo wuxuu adeegsaday Gado wuxuu adeegsanayaa dowsamareed shaqadii amisom loogu talagalay ma aha shaqadaas amisom waxa loogu talagalay furmaha Elbuur ha aado Eldeer ha aado meelaha shabaabku joogaan oo Saako ha aado laakiin meeshii Macalin Maxamuud iyo hertiisa iyo dadka inta ku jooga beeleen reegalmudug iyo dhulkii nabadda ayo laga shaqeeyay in loo wato dan gaar ah loogu wadaa ma loogu wadaa waxa ka galo ka jiro dhibaato ah waa gartay marka idinku hadii ciidamada sii joogaan magaalada Dhuusamareeb haddana xulustii xildhibaanada iyo ka shaqeyntooda ay bilaabatay hadii aad tihiin musharaxiinta oo adigu aad kamid tahay mowqifkiina muxuu noqonayaa mowqifkeena waa soo saaraynaa hadii la yiraahdo dadka reer galmudug aan la tashanaynaa madaxweyne xaaf iyo maamulka al-sunna iyo annaga murashaxiinta ah iyo dadka reer galmudug kulligan waa tashanaynaa hadii la yiraahdo hadii ciidamadaas iyo dawladdu intay isgarato ay wixii dib ugu laabato oo wax wada hadal ay miiska soo saartana waa warka rabnay haday u muuqato inay rabto inayna boobtana waa tashanaynaa warna waa ka soo saaraynaa hadii la yiraahdo waayahay guddiga farsamadu dhawaan waxay soo saareen bayaan ay ku shaacinayaan liiskii odayaasha xildhibaanada soo xuleeyay ahlu sunna arrintaas kuma qanacsano
laftirkeeda soo aragtaa shaacinta in la shaaciyo in xulista xildhibaanadu ay arrintaas bayaan horaanba ka soo saartay hal xaaraan oo gerig xalaala ma dhasho waxaa la isku haystaa guddiga farsamada waa ka weyihiin waxaa la istaa dowladda federaalka markay dhuusamareeb tegaysa maamula baa ka jiray galmudug baa dhistay madaxweyne xaaf baa joogay madaxa xukuumaddaa joogay waa lala heshiiyaana la yidhi heshiiskaa looga baxay anna waxaan rabnaa aniga halhayskaygu waa galmudug mid ah galmudug dhamaystiran oo qurxoon oo la wada joogo reer galmudug isla ogol yihiin intaad ka warhayso galmudugtii hore oon anigu wax ka shaqeeyin wax ka dhisay 2015 ahlu sunna unbaa ka maqneed ee inta kalaa la isku soo daray xasan khayre iyo madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha waxaa laga sugayay inay ahlu sunna ku soo daraan maamulka hadda waxay ka shaqaynayaan inay warqada inta u qoreen waa maqlaysa maalinta wasiirka arrimaha gudaha inuu lahaa been baan sheegayno dhuusamareen baan rabnay inaan ku tagno oo dee 35 xildhibaana warqad loogu qoray been baa lagu sheegayaa la yidhi guddiga farsamada dad laydinku diraya heshiisaa baa la been baa lagu sheegaa la yidhi dawlad rabta inay been ku shaqaysata seen u aaminaynaa seen rabnaa inaan ula shaqaysan ayeenaan ka tashanaynaa madaxweyne xaaf iyo madaxa xukuumadda iyo kulli waxaan ugu baaqayaa inaan iswaraysano sidaan hadday wax kusii socdaan aan iswaraysano haddii la yidhaah waa mahadsan